ninkayga ayaa wuxuu iga codsaday inaan la seexdo saaxiibkiisa maalmaha kamida anoo da'da qaangaarka ku jira waalidiinteeda waxay iga codsadeen inaan guursado nin iyaga ay soo bandhigeen oo nimanka meel dhaxaadka camal ahaa markay ii soo bandhigeen inaan guursado waa ka aqbalay maadaama familkayga ahaayeen famil aad u danyara lacag ninka wuxuu aan dibadda ka imaaday lacagtan ay aad ugu baahnaayeen waa ka ogolaaday inaan guursado ninkii waa isguursanay markaa isguursanay ninkii habeen walba markuu ham iga galo oo dhinaca sariirta ah ninkan nin xanuunsan buu iska dhigaya ilaahay amarkiis markuu iska dhigo nin xanuunsan dee dhakhtar iyo waxaa kula tacaalaya oo daawooyin iyo waxyaabo noocaas camal ah ninkan nin muddo wuxuu iska dhigayay qof xanuunsan muddo saas iskaga dhigaya anigu yaaban oo isla dee maxaa jira sida wax u jiraan ninkan hal mar xitaa dhinaca sariirta labadiina kuma wada kulmin si wax u tani waa isla ilaahay amarkiis muddo 3 bilood kusoo wareegatay ilaahay amarkiis marka hayaa minada kamid ah si life u weydiiyay su'aashii ugu taagneed waxaa irisay wax u jiraan dhinaca sariirta waxa igama qabanaysid maxaa jiro maxaa kaa qaldan markaas waxay u yiri waa xanuunsanahay aniga daawooyin ii socdo maadaama qof daaweyn u socdan aan ahay saas aawada sariirta waxba kaaba qaban karin daawooyinkan oo kuwaana waa fiiri kartaa daawooyin beena oo dhakhtar kasoo qaatay ahayd wuxuu daawooyinka waa fiiri kartaa xitaa maxaa lahaay qof xanuunsana ahay waa aaminay haddii aamin muddo kaleetaa kasoo wareegatay markay muddo kaleeto aad u dheer kasoo wareegatay dee haddana mar labaadka markaa weydiiyey sidoo kaleeto waxay iisoo bandhigaa daawooyin iyo waraaqada dhakhtar mar saddexaadkii markaa weydiiyey oo markaan kama dambaysi iga taagantaha oo arab inaan iska furo haddii jawaab caddaa ka waayo wuxuu igu yiri adiga Soomaaliya ma dhashid waxaa kula seexanayo saaxiibkay waa ka diiday midaas sababtoo sharaf dhac iyo sumcad daro ka weyn ma jirto ninka adiga ku qabo saaxiibkiisa la seexo maadaama aan ka diiday waxaa iri saaxiibka lama seexan karo waxaas waa uga ceeb macaano wax caqliga galay kan waxaas caqliga galay ma ahane waxa jira ee sheeg adiga maxaan ka aqaldan wuxuu yiri walaal macaan lacag ku siinaya afkaaga qabo lacagtii waxa iga galay hami aad u weyn markuu lacagtii hami aad u weyn iga galay waa ogolaaday ninkii inuu sariirtii la seexdo markuu 2 jeer ila seexday wiilkii saaxiibada ahaa ninkayga kadib waa sii wadi waayay naftu kuma siinaya saddex qof ajnabi ah oo misna ninkaaga saaxiib leh la seexo ama gogol la wadaag naftu ku siimayso waa ka diiday marka dambe waxa uu sheegay aniga inaan la seexan karin ninkan si walba lacag uu ii siiyay inaan awoodin inaan ninkan la seexdo ninkan wuxuu igu yiri waxaan ku sheegaa waxa ka qaadanaya lacagtii iyo dahabkii wax walba aad ku siiyay waa ka qaadanaya hadii ogolaan weysid ninkan la seexan weyso aan ku ceebeynaya aniga lacagtii waxa sidoo iga qaato wax dheer uma aanan arkeenin laakiin waxa ii darnay sharafteedii iyo sumcadeeda uu ku ciyaarayo maxaa lahaay sidaan ka saaxiibkiisa u seexan jiray markii dambe waa ku soo jeesto araar saaxiib ma sameynayo dib dambe uguma laabanayo lacagtaadana ma awoodo mana ku siinayo waxa seen karsan samee ninku wuxuu yiri ku ceebeenayo wuxuu ugu hanjiro ku ceebeenaya marka qisada waxay ku dhacday gabar Soomaaliyeed oo degan wadan kamida wadamada qurbaha waxay ku dhacday qisadani gabar joogta gobol kamida gobolada Soomaaliya gaar ahaan gobolka Hiiraan marka waxay tirin ninkan awalba waxa ii geysay dan oo danta familkeena aan fiirinayo ana isla hadee familka dhawaa birkamaal meel uga soo baxay leenkaas Mareykanka agashid oo si fudud ku gashid ana isla ilaahay amarkiis wuxuu soo barigtay arintan guriga ay galay oo lacagtii waa cunay hadii lacagtii aa cunay dee maxaa la ninka maadaama uu ku ceebeenayo si arintii ugu sii waday sharciga islaamka muxuu ka qabaa dadoo sharciga islaamka muxuu ka qabaa culimada